بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كافيد وناكسن وحان ايدين دادهين ايانيق وأحمد يوسف شيخ عبدي. qodobada aan idinku haynana waxa kamida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wareegto uu soo saaray xilka kaga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kuna magacaabay gudoomiye cusub. wasaaradda warfaafinta ayaa waxay ku qabatay sanad guuradeedii 44aad magaalada Muqdisho. dhanka wararka caalamkana waxaan idinku haynaa dalka Afghanistan ayaa weerar ka dhacay waxa lagu dilay ugu yaraan 5 qof. qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan haddana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareegto uu soo saaray ayuu xilka uga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi wuxuu xilkaasi u magacaabay wasiirka warfaafinta injineer Yariisow. faahfaahinta warkaas waxa inoo haya wariye Raxma Yuusuf oo inooga soo dirtay magaalada Walaweyn. wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay soo jeedin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu arkay wadatashi la sameeyay isla markaasna dhageystay talooyinka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha wuxuu shakhsiyaadkan u magacaabay xilalka kala ah mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow waxa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamed Cabdullaahi Maxamed waxa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka goowaad ee arrimaha siyaasadda ee gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur waxa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Marwo Basma Cumar Axmed waxa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Axmed Sheekh Cali Fiidow waxa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud xoghayaha guud waxa loo magacaabay Cumar Cabdirasaaq Xuseen Raxiim Yuusuf Maxamed rasmi ruuxi barnaamijka fiid wanaagsan degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose. mahadsanid Raxma. daawadayaal halka aad weli naga daawanaysaan waa barnaamijka fiid wanaagsan. aan ku bilaabay wasaaradda dastuurka ayaa kulan wada tashi la yeelatay ururka ardayda Soomaaliyeed. faahfaahinta warkaas waxa inoo haya wariye Maxamed Faarax Caad. wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan wada tashi la yeelatay ururka ardayda qaranka Soomaaliyeed. kulanka intuu socday ayaa looga hadlayay doorka ardayda ee geed u socodka dib u eegista dastuurka dalka Soomaaliya. agaasimaha guud ee wasaaradda mudane Maxamed Abuukar Zubeer ayaa kulanka ku soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha ka kala socday ku dhawaad 50 jaamacadood ee dalka ka jiro waxaana uu agaasimaha guud sharaxay sida ay wasaaradda u doonayso in ardayda ay kaalin weyn ka qaataan arrimaha dib u eegista dastuurka dalka. sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Xuseen Cabdi Cilmi ayaa ardayda u sheegay in wasaaraddu ay talooyinka dhalinyarada tixgelin doonto. waxbarashada waa waxa u wanaagsan ee dalka lagu horumarin karo waana laga maarmaan in dadka ardayda ah ee go'aansaday inay wax bartaan laga qaybgeliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka. wasaaradda waxa ay aad u tixgelin doontaa talooyinka ay soo jeediyaan ayuu yiri mudane Xuseen Cilmi. ugu dambeyntii ardayda kulanka ka soo qayb gashay ayaa soo jeedisay talooyin badan oo ay ka mid ahayd in dastuurka lagu barto jaamacadaha iyo goobaha kale ee waxbarashada. Maxamed Faarax Caag barnaamijka fiid wanaagsan magaalada Dobley gobolka Jubbada Hoose Soomaaliya. sanad guurada 44aad ee warfaafinta Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulankaas oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed. faahfaahinta warkaas waxa inoo haya Miski Maxamed Caate. xuska munaasabadda sanad guurada 44aad ee maalinta warfaafinta Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiir ku-xigeenka warfaafinta madaxa nuseej ururada saxaafadda iyo suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf iyo xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa mid oo kala hadlay in laga taliyo sidii warfaafinta dhinaca saxan loogu shaqeyn lahaa iyo marxaladaha ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay wada shaqeyn xoog leh kala dhaxayso wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliyeed. Wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Liidaan Yunis ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay sidii loo horumarin lahaa xirfadda suxufiyiinta Soomaaliyeed. dhinaca kale heshiis saddex geesood oo u dhaxeeyay wasaaradda warfaafinta jaamacadda ummadda iyo ururka Nusaj ayaa lagu kala saxiixday munaasabadda kaasi oo ku aadanaa sare u qaadida tayada suxufiyiinta Soomaaliyeed. sidoo kale gudoomiyaha magacaaban ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa bogaadiyay heshiiskan suxufiyiinta horumarkooda lagu kobcinayo. Miski Maxamed Caate barnaamijka Fiid Wanaagsan magaalada Nairobi. waa tahay daawadayaal weli halka aad naga daawanaysaan waa barnaamijka Fiid Wanaagsan oo qaybihiisii dhaxda aan ku sii siqayno. wareegtadii lagu bedelay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo maamulkii ka tirsanaa gobolka Banaadir ee lagu bedelay ayaa waxaa ka soo dhex muuqday agaasimkii madaxtooyada iyo xoghayihii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. faahfaahinta warkaas waxa inoo haya wariye Afakaadho Maxamed Axmed. maxamed cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano maxamed tuulah oo ka mid ahaa habmaamuuska madaxweyne farmaajo ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga iyo siyaasadda. tuulah ayaa ka mid ahaa dhalinyaradii ka qayb qaadatay ololihii doorashada madaxweyne farmaajo isagoo ahaa dhalinyaradii baraha bulshada sida aadka ah uga taageerayay madaxweynaha. sidoo kale Cumar Cabdirasaaq Xuseen oo isna ahaa xoghayihii ra'iisul wasaare Khayre ayaa loo magacaabay xilka xoghayaha guud ee gobolka Banaadir waxaana lagu bedelay Zubayda Mukhtaar oo xilkan haysay muddo ku dhow 10 bilood. Cumar Cabdirasaaq ayaa sidoo kale isna ka mid ahaa ololayaashii madaxweyne farmaajo xilligii doorashada inkastoo markii la magacaabay uu wareegay dhanka ra'iisul wasaare Khayre. dad badan ayaa aaminsan inay yihiin dhalinyaro firfircoon laakiin waxaa su'aalo laga keenay khibradooda shaqo maadaama ay xilka loo magacaabay yahay xil culus. Afakaadho Maxamed Axmed barnaamijka Fiid Wanaagsan magaalada Nairobi. aan ku bilaabay dhinaca iyo wararka caalamka qodobada aan idinkaga hayno. dowladda Tansaaniya ayaa sheegtay in ay saldhigyo lagu tababaro ururka Al-Shabaab ku leeyihiin gudaha dalkaas Tansaaniya. waa markii ugu horeysay oo dowladda Tansaaniya ay sheegtay in dalkaas ay ku leeyihiin saldhigyo lagu tababaro Al-Shabaab. faahfaahinta warkaas waxa inoo haya wariye Bashiir Daahir Belal. dowladda Tansaaniya ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya in ay saldhigyo ciidan iyo xarumo dadka lagu tashkiiliyo ay wadaan qorshe ay ka sameynayaan dhulka kaymaha ah ee ku yaala gudaha Tansaaniya. xukuumadda Tansaaniya waxa ay xustay in tan iyo 2016 Al-Shabaab ay dhalinyaro ka qorayeen daafaha magaalada xarunta ah ee Dar es Salaam. dowladda ayaa sidoo kale tilmaamtay in Al-Shabaab ay dhalinyaro badan ku tababareen gudaha dalkaasi kuwaasoo ay doonayaan in ay weeraraan xarumaha dowladda. Simon Siro taliyihii hore ee booliska magaalada Dar es Salaam ayaa sheegay in dhowr jeer ay weeraraan saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada baadiyaha gaar ahaana dhulka waxaana uu sheegay in ay gaarsiiyeen khasaarooyin kala duwan. waxa uu xusay in booliska Dar es Salaam ay gacanta ku dhigeen wiil 9 jir ah oo ay ka qabteen xero ay ku weerareen Al-Shabaab. dowladda Tansaaniya ayaa dhowr jeer sheegtay in weeraro ka dhacay gudaha dalkaasi ay ku tuhmayso Al-Shabaab. Bashiir Daahir Belal barnaamijka Fiid Wanaagsan Gaarisa. dalka Togo waxaa ka socda mudaharaado waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi. mudaharadadaas waxaa ka qayb qaatay haweenka dalkaas. faahfaahinta warkaas waxa inoo haya wariye Sadiiq Maxamed Kilaas. 10 kun oo ah haween intooda badan ku labisan dhar madow ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka Togo laga soo bilaabo magaalada caasimadda ee Lome ee ku taala koonfurta ilaa laga yimaado waqooyiga oo ah meesha uu ku xogan yahay madaxweynaha. waa dibadbaxii ugu dambeeyay mudaharaadyo muddo bilooyin ah soconayay oo dadka qaar ay tirada ka qaybgalayaasha ah ku sheegeen inay gaarayso 100 kun oo qof iyadoo dalku yahay dal yar oo dadkiisu ay yihiin 6.5 milyan oo qof. dibadbaxayaasha mucaaradka ayaa la dilay qaarna waa la dhaawacay halka kuwa kalena xabsiga loo taxaabay. guryaha dadka taageera dowladda ayaa la gubay ilaa dhulka lala simay.
diiradda carada taagan ayaa waxa ay ku wajahan tahay madaxweyne Faure Nzingiba kaas oo xilka hayay tan iyo 2005 markaas oo uu xilka kala wareegay aabihiis Nzingibe Eyadema kaasoo isna xilka kula wareegay Afgambi sanadii 1967 toddoba sano uun kadib markii dalkaasi uu xorriyadda ka qaatay waddanka Faransiiska. mucaaradka ayaa doonaya in muddo xileedka madaxweynaha lagu soo koobo 2 jeer oo kaliya iyo in madaxweynaha haatan xilka haya uusan mar kale u tartamin xilka marka la gaaro doorashada 2020 qaarna waxa ay doonayaan in haddaba uu xilka baneeyo. Sadiiq Maxamed Kilaas, barnaamijka Fiid Wanaagsan, Nairobi. waa tahay daawadayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa warkeena Fiid Wanaagsan. dalka Afghanistan waxaa ka dhacay weerar lagu dilay ugu yaraan 5 qof kadib markii ay weerareen dablay hubeysan hotel ku yaala magaalada Kaabul ee caasimadda dalkaasi. faahfaahinta warkaas waxa ay noo hayaa wariye Faisal Bishaar Aligo. dagaalyahano dhowr ayaa galay gudaha hotelka Intercontinental iyagoo si aan kala sooc lahayn u tooganayay shaqaalihii hotelkaasi iyo dadkii martida ay halkaasi joogay. weerarkan ayaa ah mid aad u xoogan marka la eego baaxadda iyo bartilmaameedkiisa. hotelka Intercontinental oo kamid ah hoteelada ugu caansan dalkaasi Afghanistan ayaa ku yaala goob taariikhi ah waxaana uu aad ugu dhex muuqda dhismooyinka kale ee uu ku yaala caasimadda. hotelkan ayaa ah mid aad loo ilaaliyo waxaana uu leeyahay baro control oo dhowr ah ilaa iyo haddana ma cadda sida ay raggani dableyda ugu suurta gashay in gudaha ay u galaan. hotelkan ayaa 7 sano ka hor waxaa weerarkan la mid ah ku qaaday mintidiinta Taliban kuwaasoo 5 saacadood ay ciidamada ammaanka kula dagaalamayay gudaha hotelka ka hor inta aan la dilin waxaana halkaasi ku dhintay dad ka badan 20 qof. hotelkan Intercontinental ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay ka turjumayay kobaca dhaqaalaha ee dalkaasi waxaa albaabada loo furay muddo haatan laga joogo in ka badan nus qarni. Faisal Bishaar, Faisal Aligo, barnaamijka Fiid Wanaagsan, magaalada Nairobi. dalka Jarmalka waxaa ka socda hanaan lagu doonayo in lagu dhiso xukuumad wadaaga. faahfaahinta warkaas waxa ay noo haysaa Hodan Xirsi Maxamuud. xisbiga Social Democrats ayaa maanta lagu wadaa in ay u codeeyaan in dawladda isbahaysiga ee 4 sano ee soo socota la galaan xisbiga Conservative-ka ee hogaamiya Angela Merkel oo iyagu horey u heshiis noocan oo kale ah uga dhaxeeyay. heshiiskan horudhaca ayaa labada dhinac gaareen toddobaadkii hore balse xisbiga Socialistaha ayaa walaac ka ah in xisbigooda la siiyay qoonda aad u yar haddii labada dhinacba ay ku guul daraystaan in ay ku heshiiyaan dawlad wadaag ah. waxaa laga yaabaa in mar kale dib loogu laabto maadaama labada dhinacba ay haysanin aqlabiyadda buuxda oo ay dalka ku maamulaan. daawadayaal haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalintii ciyaaraha waxaana inoo diyaariyay wariye Ismaaciil Yuusuf Abuukar Fantastic oo inooga soo diray magaalada Muqdisho. kulamadii shalay la ciyaaray dhageystayaal markaan haddii aan fiirinana Espanyol iyo Sevilla kulan ka tirsan La Liga ciyaareen 3 gool waxaa ku najaxday kooxda Sevilla. Berto Albion kulan shalay 9 saac bar soo galay Chelsea ka hortagtay 4 gool ayaana lagu dubtay kooxda Barcelona heerka hoose ka timid. Hoffenheim gool iyo 4 waxaa ku dubatay Bayer Leverkusen horyaalka Bundesliga Germany ayuu ahaa. Freiburg iyo RB Leipzig ayaa wada ciyaaray 2 gool iyo gool. Freiburg ayaa ku adkaatay Bundesliga ayuu ka tirsanaa kulankiisii 19-aad. Borussia Mönchengladbach 2 gool iyo waxba Augsburg ayuu ku dubatay Bundesliga ayuu ka tirsanaa. Mainz 05 Stuttgart ayaa 3-2 ku garaacday Bundesliga ayuu ka tirsanaa. Wolfsburg 3 gool iyo gool. Inter Frankfurt ayaa ku garaacday Bundesliga ayuu ka tirsanaa. horyaalka Premier League xalay ciyaaro badan ayaa ka dhacay 12 saac Arsenal ayaa 4 gool iyo gool 20 daqiiqo ku garaacday kooxda Crystal Palace. Burnley gool iyo waxba United ayaa ku garaacday Everton gool iyo gool. West Brom ayuu ku heshiiyeen. Leicester 2 gool ayay kaga najaxday kooxda Watford. Premier League ayuu ka tirsanaa. Stoke 2 gool iyo gool ayay ku dubatay kooxda Huddersfield Town. West Ham iyo Bournemouth waxay galeen gool iyo gool. waa tahay daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaanba barnaamijka